من عام لعام مستنينا أمتنا. استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفارته مركي عباداتك دبر على واسطة وعباداتك هي طاعاتك ووين الله ينفرها ودن وحد بيا لا استغفارته هي توبة كان كإلهي سبحانه وتعالى الله لابطه فوائد آدو فربضان بالله. من عام لعام مستنينا أمتنا بخير راجنا. شكرا لك وشكرا. استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفارتها كتجن بالله يري إله أكبر يسا نر والب أدون نقنيسا حقيسا والله دافد بدن ونحريس بدن ويان. أدعوني أستجب لكم با إلهي يري إبديست أنيقو إبريا أنيقو نواني نقا أجيب يا دعادي ني لئن شكرتم لأزيدنكم حتى نعمت إذا يقول الشكر دان با إلهي يري أنيقو نواني نبيرنيا دنبيلاته مر والب دنبي وكاسو دعيا marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxa tahay mid baahan baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalay ducada ilaahay aqbalo ee ahadiista nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxo ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacada ijaaba ku jirta habeen walba waxa uu nabigu noo sheegay inay ku jirto saacad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa maaragtaan dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajayo baahidaada ilaahay u sheego aqrab ma yakuna al'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi ad-du'a faqimanun an yustajaba lakum nabigu alayhi salatu wassalam markuu adoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuuda wajiga dhulka uu ku hayee xilliga ducada badiya buu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa xaqiiqa abu nabigu leeyahay xilliga ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslimka oo aan ka warqabin oo u ducaysa bidahar alghayb aad uga ducaysa oo ilaahay iimaan u weydiisa hidaayad ilaahay u weydiisa tawfiiq ilaahay u weydiisa barwaaqo ilaahay aad u weydiisa caafimaad ilaahay aad u weydiisa taasaana ugu ijaabo dhow nabigu alayhi salaatu wasalaam adigu walaalkaaga muslimka aan warka qabin markaad u ducaynayso korkaaga malag baa taagan marali markaad walaalka u ducaysidba walaka mithluhu malagi wuxuu ku leeyahay aamin ilaahu ducada aqbal walaka mithluhu adiguna waxaad walaalka aad u tiri adigana annaka ku niriya aamin dhabu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalayo ilaahay baa garan laakiin ducada malag waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoo ka warqabin aad u ducaysid waxaad walaalka ilaahay aad u weydiisid adigana malag ba ducada tullamida kula dul taagan oo ilaahay ku baryaaya tad'uuni astajib lakum ibarya ba ilaahay kuleeyahay ducadina waan aqbaliye marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waa inaad tiraadid alxamdulilaahi rabbil aalamiin. استغفارته مركي عباداتك دبر على واسطة وعباداتك هي طاعاتك ووين الله ينفرها ودن وحد بيا الاستغفار مثلا حجك واركان الاسلام كمدي عباداتك الله سميكو هو وين بكجرا قوب لا يستاغو قوبه هو وين ابن ادم الهي عابد يا استاغر عرفا كمده markaad عرفه istaagtay ilaahi maanto dhan weynaynayay bariyay ilaahi wuxuu yiri ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. استاغ با الهي يدي halka dadku istaagayo qurayshi waxay oran jirtay xarabka anagu ka bixmayna carafi xarabka way ka baxsanta marka munaya intaan xarabkaanu joogayna waxa la yiri baxa oo taga halka dadku istaagayo oo waliba halka marka istaagtaan soo dareertaan dib soo noqotaan waxa amal sameeyeen oo dhan waxa ku dartaan istighfar ba ilahayna leeyahay subhanahu wa ta'ala يعني حج إنه كتير نبي إنه كذب جينا محي استغفار وحلينا بري ونبي قوينا بري عليه الصلاة والسلام صلاة دمر كإنه تكنه وحكوا وهذا إنه قبلنا وامحي نبي محمد مركو صلاة من نقصده كو صدح شرب ورجل استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما معسبه سميني وكاستغفر الله سني ما هي صلاة بكتير لكن وامحي وحلا يا إله حقا ولي ما نقدين
anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hor nimi ilaahay way soo taagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaallo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysannay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeennu meel kale jirnay mar baynu waxaynu akhriyaynay ayna fahmaynay mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya intaa iga aqbal waxaad ka dabageynaysaa markaa maxay istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaaad raacinayso ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa kuwa jannada gelaya ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun ilahay wuxuu yidhi kuwa muttaqiinta ah ee alle ka cabsaday aakhiro beero iyo ilo biyood iyo jannooyin bay leeyihin aakhidiina maa aataahum rabbuhum waxay qaadanayaan wixii alla siiyey baa la yidhi ee nicmo ah ayay aakhiro helayaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sababtu waa maxay innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunkii markii ay joogeen ayay ahaayeen dad ixsaanka sameeya muxsiniina kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexan jireen baa ilaahay yidhi u fiirso haddaba erayga la daba dhigay wabilasxaari hum yastakfiruun waqtu suxuurka markay gaadhana istikfaar bay u fadhiisan jireen habeen oo dhan intuu cibaadaysto ayuu wuxuu ku gebagabaynayaa salaaddiisii istikfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga se maan gudanin waxaanaan sameeyey ee caawo dhan la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagii waxaad xaq u lahay saa daraaddeed ayay istikfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastakfir lidembika walilmu'miniin baa layidhi ka dabage haddaba ayuha alaxibba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nebi moxamed 23 sannadood buu jihaatamayey oo ilaahay diintiisa wax weliba ku soo gaadhay oo loo dhibay oo loogu hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan aynu akhrinee tirada badan leh ay soo martay 23 sano kadib aakhir suurad ahaan nebi moxamed ugu soo degta bal waxaa alla faraya u fiirsa haddaba suuraddii ugu dambaysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'a nasru اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu innahu kaana tawaaba markaad aragta ee uu kuu yimaado baa ilahay yidhi ilaahay guushiisu marka hore nasriga iyo fatxigaba ilaahay baa siiyey waa min nicam illaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay kuu timi aad maka iyo adduunba furatay oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo diinta koox koox u gelaya waagii hore islaamku uu bilow ahaa nebi moxamed isagaabaa la caydhsanayay kadib qof baa qarsanayey qof baa intuu islaamu odhanayay orad reerihiinnii qabo barigaad maqasho waa guulaystuunii kaalay saasay ku socotay ilaa iyo ay soo gaadhay markii dambe qabiile in loo islaamo afwaaj koox caamil wufuud nebiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo macsalaadiintoodii oo waayeelkoodiiba wataa u yimo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee baa ilaahay ku yidhi aadanaha aan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaan de maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofka oo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka walaale halkuu qofku isdhuldhigi laa odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyo nasrigay siiyey ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi moxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuuma ka furanaya guulaysanayey neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsan oo madaxu hoos u laalaaduu nebigu soo galay calayh salaam isagoo mutakabbiroo isweynaynaya muu soo gelin saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaaad guusha hesho ee aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku maraya ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tansiih
وإلهي ووحان عنت من أتكن زهيسو إلهي يا حما يا عيب لا ذهي وكهفني وكدري نقص ما لا إلهي تحميد أما الحمد لله أنا وامحي وإلهي يا ضمان سو بكماله وكمال أفعاله أدوينين سو كوينين سو أعماشي سفيعا إذا وحلا يري مركا جوش أركته مصدق دين تكوح كوح قلان إلهي ويني يحب كهف أمان وأمان تحق لي يا أمان أدونا وحيات عمل لطمي واستغفره إنه كان توابا إلهي وطابت كمال ليه واستغفار سو وحي إلهي وان حقاق كقابي وحي عمل طور لان لئمي وحانقوع انتمينا سمي إلهي إلى أقبل ده قفك مصر هدي النبي محمد سيدا لقول إيه إنك محادو مالينيسا مركا نصوص صنية الصلاة نيعين كان هدي النبي محمد وانتو دين تنود قال لما يونفي النفيس بوه رأي الله تاني يصدح سندود ودي ليري أرنكو هدو كورنا ما يسترمي واحد كو قبا يستبال ليري إلهي أمانتي سنها كدالي وحي كاون قابس ونسي كان نقوم كرنا واحد هذا إلهي وانت سنة ودي استغفاري توبت لك علي استغفارتا إيه توبت كان كإلهي سبحانه وتعالى الله لابطه فوائد آدو فربضان بالله فوائد إذا وحا كمد وحي السبب أطاها استغفارته مركتك هايسة إلهي إنه فرج كاغفر عليسك هايسة إلهي إنه كاقاض رزقك إلهي إنه كو بركي وحولها يمالك إلهي كو بركي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي النوغو الشيء هيا نبي الله نوح قوم كي سمحوا كوانين هيا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وحان كويري إلهي قدام داف ويديستو إلهي الطوبت كانوا استغفار لإماذا محايا الإلهي وامضى في البضن محا كدن بيمرك إلهي الطوبت وكا أقبله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وحل الراديو هديت هاي الدنيا مال إيا أولاد انت استغفار تبضن أيا الله هلا إلهي سمدوا إذين دينا هيا مطر كيبا إلهي إذين سينا هيا إلهي أولاد بو إذين زيادين هيا إلهي بيرأي وويال نحمر يا إلهي إذين سينا هيا هدا استغفار تلتمادا مركا استغفار توحى الله هلا وحويان وحا آد هيستد إلهي إنكو بركة إلهي إنكو بركة حان حاسوسانا هي هبين هروي أيام المغرب كنين ميل كلتو كده مركا سوحو يري وحان آد هيا عمرضا سنة دويتنا حجكو آد مركا سان وحان كو يري ماشي يرتا هيدو آد هيستي وهل متريا وح الله مدعى ووحكو قدن شري وحير عن معنى لهين بقى صارنا بل كورن وحو يري ماشي بان عمرضا كآديا وابان دغيستay istighfaarta adoo ka hadlaysid istighfaartii baan badsaday meeshii yartaahid ilaahay waa barakeeyay xajkii baan ka aaday haddana umraan ka aadaya ilma aan dhalay oo dibadda jira jaamacad baan uga bixiyaa maalin kasta istighfaarta iska badiyaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu iga siiyay rizqi waasi'a oo aad u fara badan iyo faa'iidooyin ziyaada baan ka helay gabar baa marka wuxuu yiri aad u murugaysneed ayaduna oo suuxuma ku dhacday oo sidaas oo kala ahayd baan u sheegay inay ku cilciliso astaghfarta rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim way ku cilcilisay ayadina wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ubarakay wax badan oo ciriiri kaaga jira maantay istighfarta badi waxaad ku celcelisaa rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim astaghfirullah dambi dhaaf ilaahay weydiiso hadaadan carabi aqoonin Soomaali ku toobadkeen istighfaarta af Soomaali oo la imow da taqaanina ku celceli rabbi ighfir li ku celceli dambi dhaaf ilaahay weydiiso istighfaarta badi ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan oo ciriiri oo ku haysta ayaa ilaahay kaaga qaaday faa'iidooyinka laga helo istighfaarta waxa kamid ah qofka ayaa taacada ilaahay ugu xoogoobay xoog buu yeelanaya
وكان نبي الله هود عليه السلام قوم كيس كيري إلهي سبحانه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قوم كيجيوا إلهي استغفار ويديست وإلهي النقض سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين حق الذين حق بإلهي إنكو ضريا ومض استغفار تبضا إلهي وحسيا قوة إيه حق أي شان طاعة إلهي إيه وحويا خيرك أي وحويا لنا يا قوة إيه حق بإويا لنا يا استغفارت أسبابها اللي لفوائد إلا وحكمت قفك أنت واستغفارنا أيوه بلايوين بدن بالله حجابيه عقوبات بدن وكل علابة إلهي كإلالنا يا إلهي وحله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلهي ما أهن مد عذابية أيقو إلهي سبحانه وتعالى أنت يدم داف إلهي ويدي سنيان إلهي سبحانه وتعالى مع عذابية أنت استغفارت الله إيمان أيوه عقوبين بدن أي إلهي سبحانه وتعالى إنك دفاعية وحاكمد فوائد استغفارته أي لا ده وحاكمد وحويان قلبك أي صفيسا قلبك أي صفيسا والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبي قفك مؤمن كهدودا بابه قلبك سوحا فولا يا برمدو أيا كنا عايز برمدو أيا قلبك سفوليس برتاس مدو مركي قلبك سكون على النبي يقول فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه هذول نقضوا إلهي الله أبطه ودنبك كبحه كدقاقه كفقه واستغفار لي ماده قلبك سمير كيبا لغا تريا والله صافي قرينا يا والله سوفيا وحلوس لغا سوهيا لغا ترهيا وحويان دبيعدي كدعدي او مدوغا اهيد با لغا بابينيا حدو توبت كين كدبغي وان زادت هادو دبيعدي كدعدي او دنبغا اهيد دنبغي او زيادسدو دبيعدينا وا زياديسا او زياديسا حتى يعلو قلبه الرين الى قلبه سرانك الهي او شيغي او دبوله رانكو ومر قلبك فولوي إلهي وحيري كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلبي قودي وحا الضبولي أو فولي أو أولي وحي أي شقي سنيين أي قلبك فولي وحويان نبعدا سيهدادا طوات كان يا استغفار آدان كدبقين وحويان وزياديسا أو زياديسا إلى قلبك أون مدوبادو قلبك مركو مدوبادنا وخير أو قلها يماله استغفارتي الله إيمان ما هيو خيرك الله إيمان ما هيو قلبك سوى كحرية هي توبت كانك عقوبة أيها هي سطح مركا وإن استغفار تقفك أوبريا ولبا آخر الليل دقيقة بع الله كدقه إنه قفك وحن استغفار لي ماذا إلهي وحي وبالأسحار هم يستغفرون وقت يلا الضمبه وكو إلهي دمدافك ويديست سبحانه وتعالى أين استغفار تبضنه ولبا وحا خير إيا بشارع النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال لا يرفع صاحب الشمال لا يرفع القلم عن 6 ساعات عن العبد المؤمن المخطئ أو كما قال صلى الله عليه وسلم قفكم بركو الدنبابه ودنبغا وكدعه ملقا دنبغا قرى هيا مركبا وقري مهيو إلى مدة 6 ساعات مدة 6 ساعات قدر كودا أيو كإلالينيا وقالنك كهاينيا وكتشوتشنيا والنبي يقول فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها هادو فرصة داس لسيه كفائدة يستو ودنبغي دعي كقوم مايو وإلهي الدنب دافو ويديستو ملقوا طوريا وقريم هيو وإلا كتبت واحدة هذه مدة مركي الله قبطي وكفائدة سوايا استغفار يا توبت كان وحويان مركز وقريا دنبغي مركز الديوان قلنا مركي دنبغو كان دعوا استغفار يا توبت كان كدبجه انت لغو ديوان قلين او ان لقري waxa laga toobad keenayaa waa dambi oo dhan hadii nooc kasta dambigaasi uu yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala toobada waa aqbala inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a dambi aan ilaahay dhaafin ma jiro hadii dambigu uu yahay
dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo addoonka ka dhaxeeya addoonku waa inuu dembigaa ka dhex baxaa ka qoomameeya uu go'aansadaa waxa weeyaan mar dambe inuusan ku laaban ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga toobad keena haddii uu yahay dembi uu ka galay bani aadamkana haddii dembigaasi uu yahay maal waa inuu maalkii u celiyaa hadduu qofkaasi u dhintay waa inuu kuwii dhaxalkiisa lahaa uu siiya hadduusan aqoonin waa inuu xaaraamtii ka dhex baxaa oo waxa weeyaan wadooyinka iyo meelaha mataqaanaa masaakiinta iyo waxaasuu iska siiya oo maalkii waxa weeyaan uu bixiya walidaalika dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa isku mid maahan quluubtoodu qofku markuu ogaado inuu xaaraam ku jiro qof baa ilaahay markiiba toobadda waafajinaya nin baa aabbihiis dhintay beri dhow oo aan sii fogayn markuu damcay inuu karfano ayaa la yidhi xoolahaaga aabbahaa kuma karfani karti kasabkaaga xaaraam baa ku jirtay xoolahaagu waa xaaraam karfan aabbahaa meel kalea looga raadinayo waa nin dukaamo leh arrintaasaa waxay ku noqotay culays nin shiikhuu u tegey wuxuu ku yidhi maalkan saa iyo saa baan ku shaqeeyey waa xaaraan buu mana haysan karti waa inaad ka dhex baxdaa kulligiis xaggee ku bixiyaa buu yidhi waxaa siisaa buu yidhi dadka masaakiinta ah meelaha agoommuhu joogaan waddooyinka la dhisayo isbitaallada meelaha iskaga baxo kulligiis ka dhex baxa dukaankii buuxay wax alla wixii yaalla waa xaraash waa ka baxay gurigii uu lahaa uu ka dhex baxay isla maalinkii maryihii uu qabay wuxuu raadiyey maryo uu ku tukado oo saxa buu raadsaday maryihii uu qabay wuxuu raadsaday maryo ku tukado waa nin caan aha oo dhaqaale leh oo dukaamo leh oo ganacsado ah oo guryo leh dhammaan uu ka dhex baxay maryihii maalinkaa uu ku tukanaya waxaa looga soo raadiyey meel kale uu ka raadsaday gurigiisii uu degnaa waa ka baxa dukaankiisii wax alla wixii yaalla waa ka baxa ilaahay subxaanahu wa tacaala buu uga toobadkeen qofka waxaa la rabaa marka dembiga uu ku jiro hadduu noocaasu yahay maal xaaraam u haysto oo habeen iyo maalin uu leeyahay astaqfirullah 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 maalkiisuna xaaraam uu yahay ducadiisa la aqbali maayo waa inuu xaaraamta ka dhex baxaa waa inuu dembigaas uu ku dhex sugan yahay ilaahay uga toobadkeena waa inuu ka dhex baxaa ilaahay baana bedel ka fiican siinahayo wayna badan tahay dad badan oo ayagoo hantilayaal ah intay ka dhex baxeen oo cayr ka noqdeen ilaahay uu siiyey intii iyo wax ka badan iyo wax ka badan iyo wax ka badan ilaahay uu siiyey waxaan hadday xaaraam yihiin oo aadan sadaqaysan karin oo aadan masaajid ku dhisan karin oo hadday sadaqa aad ula baxda ilaahay uusan kaa aqbalahayn oo aadan xaj ka aadi karin oo hadhowta adiga haddaad dhimatay aan lagaa karfanahayn maxay faa'iidaahoo kuu leeyihiin waa cuquubo kuu ziyaaday qofka marka toobad keenaya waa inuu dembiyada dhammaantoodna ka toobad keenaa sidaasna toobadkeenku uu dhab uga ahaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين